jannadana lagu galo adoon xoolana bixinin naftaadana aan bixinin haddana inaad si fudud janno ku geli karto adoon shaqo ka hadhin adoon hawl ka daahin adoon enerji badan bixinin adoon dhaqaalo bixinin adoon culays dhib kale ku soo gaarin hal waxuun haddaad ka adkaato inaad janno gashaay hubaal bay noqon kartaa qofka ilaahay waafajiyo nabigu saxaabadu la hadlay sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu markaasuu yidhi ma idiin sheegaa waxaad samaynaysaan oo dhan kan ugu khayr badan darajooyinka aakharana ugu sarreeya rabbina ugu jecel yahay oo aadan shilin bixinaynin nafna aadan horaynin ma idiin sheegaa qofkii diyaar u ahaa jannada naf iyo maal inuu u horo haddiiba la yidhi waxaan nafna la horaynin maalna la bixinaynin jannadana ugu darajo weyn ma kuu sheegaa si degdega iyo haleelo ah bay horay si degdega ugu dhaheen haa rasuulka ilaahay noo sheeg markaasuu wuxuu yidhi dikrullaahi wey ilaahay xuskiisa inaad barisaan ilahay inaad in badan xustaan afkiina iyo carabkiina bartaan tasbiixdiisa iyo taxmiiddiisa ku celcelisaan saa darteed waa salaadii faradka ahayd ee tawxiidka kadib uu khayr badnayd acmaasheenna markaynu dhammayno maxaynu ka dambaysiinaa dikri ilah astaqfirullah astaqfirullah tasbiix la akhriyo taxmiid la akhriyo dikri baan ka dambaysiinaa saa darteedna wuxuu yihi dikrullaahi nin baa nabigu yidhi calayhi salatu wasalaam rasuulka ilaahay oo shariicadii camal aan sameeya waan garan lahay kii aan soo u imaadaba isagaa ugu khayr badan baan isdhahaa salaadaan ahi dhegaystaa waxaan dhaha wi salaadun ku dadaal kadib baan soom baan dhegaystaa kanaa ka fiican iyo uga guur kadib baan sadaqa dhegaystaa alla tanaa ka fiican baan idhaahdaa kadib baan xaj iyo cumro la dhegaysan kuwii horeba tanaa ka daran baan dhihi cilmiga barashadiisaa iman may tanaa ka daran waan ku wareeray buui mid allaalay ee midaan ku dhego oon qabsado jannadana ku galay ii sheeg wuxuu ihi laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaaga dikriga ilahi usa ka qalalin jidkaad socotaa subxaana allah iska dheh naftan waxaynu tijaabinay oo idinku dib ila akhriya maskaxdani inay huruddo maahane ma nasato naftaadana waxun baa ku wareegi ama guriga keliya kursi fadhi ama gidaar ku tiirsanow ama dariiqaa soco marka waxaad samaysa afkanna maba aamusi karaba carabkan lamaba xajin karaba waayihii hore waxaa dhis jiray ninka darawalkii iyo markuu gaadhiga wadee hadda telefoon baa yaalla bal wax yar soco wax yar markaad joogto haddaad waxaad la hadasho weeyo kanaad soo qaadi wuu diri isagoo darawalo waddo saaran buu diri wax macno oo markaa hadalka dhegaysata kaga xidhanna ma jire wuu aamusi laya ma aamusi karo haddaad maanta o dhan socoto mid baa heesaya mid baa wax kala qaadaya mid baa waxuun akrinaya waxun baad ka fikiri waxun baad ku mashquulsan tahay markaa halkan ka baxdo eed guriga tagto bal intaad xisaabtanto waxaad ku soo mashquulsaneed maxaad natiijo ka haysaa waxba kulliguu qiiq iyo hawuu ahaa waxaa layna barayaa marka dikriga ilaahay geli bedelkeedi boodhaboodhaad saaran tahay maxaa kuu diidaya subxaana allah inaad tiraado alxamdu lilah wallahu akbar subxana allah alxamdu lilah wallahu akbar ma wax kuu diidaya jira subxana allahi bixamdi subxana allahi alcadiim ma kharash baa kaa bixi ma enerji baa kaa bixi ma jidkii baad ka daahi haddaad gaadhi wadoo darawal tahay iyo haddii aad dhexda ka saaran tahayba dikriga ilaahay baa nabigu fudaydkiisa markuu sheegaya waa ka yidhi kalimataani khafiifataani cala allisaani laba eray carabka u fudud miisaanka aakharana culus allana jecel yahay subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim intaa inaad tidhahda subxana allahi bixamdi subxana allahi alcadiim halkaa markaad safka hore ka dhaqaaqdo ilaa aad kabaha xidhato imise jeer baad dhihi kartaa ilaa aad gurigaaga tagta imisaad dhihi kartaa nabigu waa kii mar kala baray laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir riwaayad qaarkood yuxyi wa yumiitu calaa kulli shayin qadiir 100 jeer haddaad akhrido intaada camalkaad samaysay qof kaa tira badiyey maahane camal ka khayr badan maalintaa qof samayn karaba ma jiro laakiin maalintoo dhan baa ku dhaafi hal mar adoon subxaana allahi bixamdi subxana allahi alcadiim dhihin waa mashquulsanta indhahaagii waa mashquul maskaxdaadii waa mashquul afkaagii waa mashquul haddayna dembi ahayn maalaa yacni waad ku mashquulsanta saas darteedna waxaa layna barayaa laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah qur-aanka dhanba salaada marka laga sheekeeyey waxaa la yidhi tanhaa cani ilfaxshaa'i waalmunkar waladikru llaahi akbar dikri ilaahay baa ka sii weyn waayo salaadu 5 jeer bay soo noqotaa
qof shantaa jeer ilaahay xasuustay iyo qof maantao dhan rabbigii xasuusan oo dikrigiisii hayaay dee ma sinaan karaan. malaa'igtu waad ka daalin kartaa. malaa'ig baa lagu xil saaray haddaadan carabkaba dikriga ka qaadin iyana qalinkiiyana joojini wey. dikrigaa ilaahay gaar ahaan xilliga qafladda dadku waxa kale ku mashquulaan, maskaxdu ay maqan tahay, xilliga fitanka ah waxay ka ajir badan yahay wakhtiyada kale. nabigu bisha rajab bisha shacbaan buu aada u soomi jiray. waxaa la yidhi maxaad u soontaa? wuxuu yidhi dadkaa halmaama inta badan. rajab bay dadaalaan, ramadaankana way dadaalaan, shacbaan dhexday ka baxdaa, bishaasaa noolaynayaa. marna waa kii nabigu yihi xadiidkii ilmuhaajir ibni qufud alcibaadatu fi lhajri ka hijratin ilay. markay dagaalka iyo fitanka iyo buuqu socdee la kala qaxayo, qofkii cibaadada ilaahay iyo salaada iyo dikriga xasuustahay nabi maxamed oo nool calayh isalaatu wasalaam qof hijro ugu tegay buu lamid yahay. ka hijratin ilay ajirkaas leeda. markay fitanku socdaan ee dadku kala cararaya mashquulsan yahay dee waxaan baaseen ku mashquulsannahay oo kaleeto wey. markay sidan tahay munaasabaadkan oo kale la joogo dikriga ilahay baan u baahannahay. dikriga ilahay waxaan kusoo gabagabeynayaa oo carabkaaga aada badisood bartaay. waxaa laga yaabaa mar inaadan joogin oo madaxaagu maqan yahay. maskaxdaadu markay maqan tahay way haasaawaysaa. carabkaaguna dikriga ilaahay inuu hayaa dhici karta. xilligan dambe xanuunadii jirooyinkii sakaraadkana waa mar walba waa sugayaan qofka. oo ilahay uu ku tilmaamay wajaءat sakratu lmowti bilxaqi dalika maa kunta minhu taxiid. wax waalli camal a weeye mowtku markuu yimaado. garashadaa tagta, dareenkaa tagta, xakamayntaa tagta. qofku ismooga wuxuu leeyahay waxaad ku dhimatun baana aakhira lagu soo saaree u dambeeya afkaaga. lidaalika nabigeenu waa kayna baray qofka tawxiidka carabka ha loo mariyo markuu dhimanayo si isagoo tawxiid haysta loo soo saaro. dikriga haddaad badiso markii aad xanuunsato isku dardarmato xaalad kadiisa kugu dhacdaaye dikrigiibuu carabkaagu boobiyo isagu wuxuu yaqiinay buu ku celcelin. ninkii heesta aada u qaadi jiray heesi jiray isagoo heesaya naftu ka bixi. walidaalika ragga odayaasha ragga ayagoo kale wax badan baan goobjoog u soo ahayn. nin qur-aan ruugaha oo markay sakaraadku qabtay qur-aankii bilaabay isma oga, iyo nin maantao dhan heesi jiray oona shahaado laleeyahay soo heestii u qaadaya naftu ka baxday. intaba aragna wixii aad ahaan jirtay markaad miyir qabtay aada ugu celcelin jirtay, marka miyirku kaa tago isagii baad ku celcelin, isagii baana lagugu soo saari. oo nabigu wuxuu yubcathu lmaru calaa maa maata calayh. qofku wuxuu ku dhintay baa lagu soo saarayaa. laba kee kugu roon marka maantoo dhan social baasaa laga yiri iyo heese iyo inaad celceliso oo markay naftu ku qabato iyadii adoo qaadaya dhimato adoo heesaya aakhira lagu soo saaro. iyo dikriga ilaahay ajirna lagaaga qoray intaad barato carabka baratood ku laylido markii xanuun kaa tira batee kadis kugu yimaado isagoo dikrigii akhriyaya aad dhimato oo adigoo subxaan allah le aakhira lagu soo saaray kee ku roon? nafya shaydaan baa ina duursane qof kastoo muumina ka fiican waa garanayaa. saas darteed munaasabadahan dikriga ilaahaynu badinno, adkaarta ilaahaynu badin. xilli fitan badan baa lagu jiraa. geeridii deg deg ahayd way iska badatay. diyaarad baa dhacay, markab baa quusay, uddoon baa la degtay, shil baa baabuur galay, kansar baa ku soo booday, wadnaha istaagay, maskaxdaa dhiiggii fadhiistay. wax jinniya jaanun baa la sheegayaa. cudurradan ma jiri jiranoo innaga aan aqoon mise hadda dembigii iyo macsiyadii baa bato cudurradii baa soo batay, allahu aclam. kolba calaamadaha qiyaamada soo dhowaanshaheeda qaar culimmadu waa ku daraan mowdkan faj'ada ee degdegin ee la wada dhimanayo. waxaa igu yaabaan igu naxdin badnayd wakti igu naxdin badnaa jiddo iyo maka dhexdoodaan marayay. baabuur shil galay oo baaba-ay baan soo marnay. laba dhallinyaraa saaraaye mid waa dhintay midna waa sakaraad. gaarigii baaba-ay muusig baa ka shidan, baladii iyo baaskii intii kale burburtay, meeshii muusig keliya samaacaddii ma burburin, way ladan tahay. wiilkani hees buu qaadayaa, baashii u dambaysay uu la qaadayey buu la mirqaansan yahay, waana sakaraad, waa sakaraadayaa. oo gawaaridii baa la wada istaajiyo, waa la soo wada degayo, waa la wada qabtay wara shahaado laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allah. yaad la hadli aday kuu taallaa sheekadaas. annagoo taagtaagan oo uu heesaya naftu ka baxday. marna caytamaya allah yalcan abuukada uu ku hayo baa naftu ka baxday. haddii kaas waxa ku dhacay dee wax gaara ma haynine waxaanbuu ku mashquulsanaa. idna waxaa la ii sheegay soomaaliya nin baa wuxuu yidhi waxaan taagnaa ardayda la foola ka soo baxay oo jidka taagan
baa gaari ku dhacay ninkii koobuu galay waa la isugu yimid ninkii waana miyir leeyahay qur-aan buuna akrinayaa markii dambaan waraysanna waxaa la yidhi qur-aanka aad waa xifdiyo 24 saac qur-aan akhriyo ahaa ninkaana qur-aanku akhriyaybu ku nafbaxay ninkana heestuu qaadayaybu ku nafbaxay labadaa inaa kala doorataa kuu taalla laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illaah dikri ilaahi aynu badinno adduunka wax badan baaba soo kordhaye hadda meelaha qaarkoodna imise nin baa intay naga safartay meeshuu ka degayba gaari qarxay baa la tegay la yidhi qof walba wuxuu ilaahay kula hortagayo wuxuu ku dhintay baa aakhara lagu soo saari ilaahay khaatamada ha inoo soobiyo camalkeennan iyo dikri ilaahayna allah inoo fududeeyo